musharax madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo ah madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarka ayaa booqday qaar ka mid ah dadkii dhaawacadu ay ka soo gaareen qaraxii Muqdisho ka dhacay sida warkan uu ku soo dirayo wariyaheena Maxamed Ciise Maxamuud inkastoo maalinnimadii shalay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho ay dad badan ay ku dhaawacmeen ayaa qaarkii dadka dhaawacmay waxa la keenay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta isbitaalka waxay noo sheegeen in qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ay noqdeen kuwa caafimaad qaba isla markaana dib loogu laabay xarumahoodii iyo goobihii ay ka yimaadeen intii aan ku sugnaa gudaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada kuwa oo booqanaya isbitaalka iyo dhaawacyada yaalay waxaana ka mid ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana warbaahinta uu kula hadlay gudaha isbitaalka marka inta dhaawacana Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafiyo cidii mataqaana jecel inay khayr ka qayb qaadatana waxaan dheeleen isbitaalada sidan oo kala ah caawiya oo gacan siiya si qof wax ku dhacayaan lama yaqaan qof walba oo mataqaana hadhow adeeg u baahnay marka u baahan yahay oo ka helo intaas markaan ka gudbo aadan uga xumahay dad Soomaaliyeed inay maanta ku howlan yihiin inay dad aan waxba galabsan oo guryahooda hurdo ay dhibaateeyaan oo mataqaana dhimasho iyo dhaawac hotelka laftigiisa waa tagnay waxaan ku soo aragnay burbur weyn يعني هانتي بدنا ماشي كبر برتي ضد بدنا متقانا ضد بدنا ودجنايا ماشى هو جودي لبابيي مركا وحن لا هاي لأن يرد الله مرن هبابيي هكون مشغول إن هذا واحد يشد إن هذا واحد بربرسد كون مشغول إن هذا واحد يشد وحن ربع أنا كوب قاعد عيد ماذا أمني ذلك أي وضان ظروف تأذى كل شقين عيان حنو رجينا إنك يقول استان مسؤولية دمانة لقى في الآية الله حل ساري رمتنا شعبك الصومالي دمانة qiimeen iyo qadarin u hayaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa badbaadinta naftooda iyo noloshooda marka waxaan idin rajeynaa ciidamada qalabka sida meel joogan baguulan idin rajeynaa foojignaantiina badiya marxalad adag lagu jiraa marxaladna waa marxalad adag qabayaashu ay badiyaan dhibaatooyinka ay la damacsan yihiin shacabka Soomaaliyeed iyo cidda u adeegaysa Ilaahay idinku guuleeyo mas'uuliyadiina adinkana waa mahadsantiin sidoo kale agaasimaha guud ee isbitaal Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa goobta waxa uu kula hadlay warbaahinta isaga oo ka warbixiyay xaaladda dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho marka annaga shalay dhaawacyadeenayd wixii aan u qaban karno waa u qabanay qaar dadka aan daaweyno la sameeyay meel kale loo qaaday qaar intensive care iyo mashiino kale u baahnay hospitaalka aan aalin laakiin badidooda waa noo joogan waajifna qaybaha kale joogan qaraxii shalay ka dhacay hotelka Xayaat ee magaalada Muqdisho ayaa sababay dhimashada in ka badan 10 ruux iyo dhaawaca ku dhawaad 40 ruux sida ay sheegtay wasaaradda amniga qaranka ee dawladda oo ka dhacay ka oo iminkaba u muuqata inay gaadiidka kala duwan ay isticmaalayaan maadaama la furay halka oo maalintii shalay loo xiray qaraxii ka dhacay magaalada tan Muqdisho Maxamed Ciise Maxamuud Soomaali Cable TV gudaha isbitaal Madiina Muqdisho